wasaaradda ganacsiga iyo isdhexgalka gobolka iyo hay-adaha ay khusayso ayaa kulan qiimeyn ah ku yeeshay warbixin ku saabsan waxqabadkii rubicii hore ee sanad miisaaniyadka 2018. wasiirka ganacsiga iyo isdhexgalka gobolka Dr. Kasahun Gofe ayaa sheegay in natiijooyin la taaban karo laga diiwaangeliyey waaxyaha ugu muhiimsan rubicii hore ee sanad miisaaniyadkan. waxa uu sheegay in ka badan 2.48 bilyan oo doolarka Mareykanka uu ka soo xarooday dakhliga dhoofinta rubicii hore ee sanad miisaaniyadka 2018, isagoo xuseyn horumar baaxad leh laga dareemay wax soo saarka dhoofinta, oona sheegay in dakhliga soo gala rubicii uu ka sareeyo 65% marka loo eego isla muddada sanadkii hore. waxa kale oo uu sheegay in rubicii hore uu yahay sanadkii ay Itoobiya ku dhawaaqday inay xubin ka noqoto ururka ganacsiga adduunka, isla markaana ay bilowdo aaga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika. በአንደኛ ሩብ ዓመት ብቻ ኢትዮጵያ 2.48 ቢሊዮን አሜሪካን ዶላር ገቢ አግኝታለች። ከአምና ተመሳሳይ ወቅት ጋራ የ980 ሚሊዮን ዶላር ገደማ ብልጫ አለው። Itoobiya rubaca koobaad ee miisaaniyadda sanadkan dakhli ka badan 2.48 bilyan oo doolarka Mareykanka ah ayay soo xareysay, taasi oo ka sarreysa xilligii la midka ahaa ee sanadkii hore, isla markaana ay ka dhigan tahay koror dhan 65% marka la barbar dhigo rubicii hore. sidoo kale rubaca koobaad waxaa lagu diiwaangeliyey 980 milyan oo doolar oo ka soo xarootay ganacsiga, waxaana la filayaa in dhammaadka sanadkan la gaadho bartilmaameedkii ahaa 9.40 bilyan oo doolar.